سادرتيد بaa marka waxay aasaaseen 16 December 1961 ayaa waxa la aasay Spear of the Nation warankii qaranka luqadooda waxa lagu dhahaa Umkhonto Wesizwe ayaa lagu dhahaa luqadooda waxaana asal u ah Spear of the Nation waxa uu ah Zulu qabiilka Zulu ayaa asal u ah ayaa la aasaasay ururkaas waxa la baabiyay 1990 markii ay midabta koorkii ka baxeen ayaa la baabiyay Spear of the Nation okay waranka ummaddu muxuu ahaa hadafka oo loo aasaasay maxay waxa aasaasay Nelson Mandela mar hadii nabadgelyo xul uu keenay waay oo dadkii la dilay oo la gumaaday oo la caburiyay wax kasta lagu sameeyay way iska caddahay in dadkan ay filcilin sameyn doonaan okay inta filcilinta ay qabiil Zulu iyo Khosa iyo qabaa'iladu nin walba gaar u sameyn lahaa inagu maan intaan ururkii sameeyno ما مدينه جهود يدلله ما مدينه صابته مركي الصومالي وهدي والله نور بقار كأهلجن وقبيل بقار وحب لعبه هذا ودي وحنا قلنا سواها الحكمي كرن لكن إنكم ما هنتان سمين أورد دجال لما قبائش عندنا وركيد دجال ربع نوصل بير تصحيح وحيابا يسمى وحكم ده هيد يكون قنعين إن دجال لأنتي أيس الحرية جاري كرن شعب جنوب سود أفريقيا مرأة الله ضدنا وحيد هني حكومته option kale nama siinin dawladdu sababtoo ah wax walba waan sameeyay oo nabadgeliya oo mudaharaada oo shaqo strike iyo shaqo joojin ah laakiin way shaqeyn weysay halka noo banana waa maxay waa in aan dagaalano ururkii waa la sameeyay waa la hubeeyay waan soo sheegi doonaa qaababka loo sameeyay kadibna waxay hawlgal bay bilaabeen way fariisteen waxa dhaheen dadka cadaanka ee shacabka mashaakil lagu hayaan inaan dilo waxba ma aha inaan inagu meel qarxino laakiin waa inaan دولة حرمها أو حكوا سمين يا وانكو سوى هذا مسلم منهج والله ما حنتو مش أوريسي وحكى سمي حاجة جوهانسبرغ يبوت إليزابيث يديربن صدق ثام قالوا أيا وحي وررين حرم الدولة أيا وررين سي معناها يسوت الصان إن ما أنت لقى بالله لحية تبنكي ديسمبر كوسال بقول لحية يكوي سو أفريقيا قشي مرحلة عصب أي قشي marka ciidanka la sameeyay ayaa waxa loo baahday ciidanka laba u baahan yahay laano mudaharaadka iyo waxan iyo siyaasiyiin isu imanaysa iyo waxa lagu dabari karaa waxyaabo yar laakiin ciidan u baahan hub oo u baahan saanad oo u baahan caafimaad oo u baahan wax qabaa'il afrikaan meel degan laga qaaday uma tarayo saadarteed ku 1962 ayaa waxa la Nelson Mandela inta baxdo bal afrikaanka dhaxgal oo hal nooga soo raaday iyo si aan wax u sameysano كل سهل بقول لحين لبدي مركه لا كل سهل بقول لحين لبدي أفريقيا أديس أبابا أيها وحلوقة بين يشير بان أفريكان فريدوم موفمنت أوف إيست أند سنترال أفريقيا المجرم أورك مدو أفريقيا مجرم قبل الأساسي أورك مدو أفريقيا صدق لحدين كسوما لحدين صدق هذول الأساسي كم لحدين لبدي مركب Pan African Freedom Movement of East and Central Africa وعلى سكون جري صوماليا إثيوبيا السودان إيا تنغانيكا تنزانيا ولما سميس من لحدين صدق هذه أي زنزبار عربتي هي سلقات كهذا لوجو ماذا كدم كوبيرتي أو لوبعي حلقة مجرم شركة أيا وكقيب قالي نسل مانديلا شركة أديس أبابا لو قبري dad kaasa qabanay laakiin markuu shirki ka qayb galay waxyaabaha buuga waad ku amaanayo xakim Ethiopia iyo Haile Selassie aad ugu amaanaya wuxuu Haile Selassie wuxuu ku tilmaamaya Haile Selassie il xikmad iyo hodantinimo Ethiopia wuxuu ku tilmaamaya baladkii ama wadankii xorriyadda iyo gobonimada aan laakiin saa ma arko Ethiopia waxa ay tahay gumeystii uu ka calaalay mid lamid ah Ethiopia oo arka marka uu kala duwan halka asaga wuxuu arkayaa dal macnaha hadii asaga xorriyad ka shaqeynaya laana u fiirso Afrikaanku ما أقبل كران إن إثيوبيا أي جميستو ضد صوماليا وماذا كله ما أقبل كران لأن إثيوبيا مركز مغلان وحام مسك هذا كجرته وطن كأفريقيا مدوق أفريقيا اللي قلنا سي كجرته مركز هذا سووا أركو إن بلد وطن كحرية دي جواني ماذا أنا عارك وطن كجميس وهالكدل يوروبيان مركز أفريقيا كانوا جوسنيين شو يسمى مركز أنا وحنا واقعنا
waddanka ugu gumaysi xun waliba ugu liita xabashidu ayaan aniga xasan ahaan u garanayaa laakiin de asaga daniisi ka shaqeynayeen anigana dantayda iyo rabitaankayga iyo taariikhdayda ayay dudsi ay diidsan yihiin marka nin walba angle ayuu ka fiirinayaa baalki korma yaabin Nelson Mandela laakiin aad baan uga soo jeedaa kuma waafaqsani marka tagay meeshii Afrikaanka wuxuu kala kulmay soo dhaweyn aan caadi ahayn oo ila abad maskaxda bedeshay Nelson Mandela oo buug hada buugiisa kale aad uga sheekeynayo sababtoo ah ma filayeen inay Afrikaanku wacyi noocaas ay leeyihiin Muuse filayeen kadib wuxuu la kulmay General Aboudki Sudan wuxuu la kulmay Haile Selassie wuxuu la kulmay Madibo Keita wuxuu la kulmay Senghorki Senegal wuxuu la kulmay Hawari Boumediene Jazair Algeria wuxuu la kulmay Odinga ninkan hadda jooga abihi ayuu la kulmay mid walba soo dhaweeyay aad ayuu runtii saameyn ugu yeelatay kadib shirka marka dadku tagaan laba shir baa la galay ogtiin kala mooyeen mid saxaafadda iyo waxa ka mamnuuc midna waa mid saxaafaddu ay joogto kii saxaafadda ka fogaa qodobadan u codsaday Mandela koo in ciidamo loo tababaro ururkaas aan asaasnay oo sameynay garabka hubaysan laakiin anagu isku filaan ma hayno waxaan rabnaa in loo bilaabo in loo tababaran rabnaa tababar kaliya ma waxu baahanahay hub iyo saanadna in la siiyo labo wadamada Afrikaanka waxaan uga baahanahay in waxbarashada sare jaamacadaha aan naga caawisan sababtoo ah dadka Afrikaanka ee madow jaamacad gali kari aad ba u yaraayay waagaas ama lama ogoleen saadar wadamada Afrika wuxuu ka codsaday Soomaaliya Ethiopia Sudan Tanganyika iyo wadamadii kale wuxuu ka codsaday in waxbarashada jaamacadaha dadka South Africa la siiyo ayuu ka codsaday wuxuu kale codsaday markii shirkaas uu dhamaaday markii uu horeysay dafcadii koobaad ee ka tirsan waranka ummadda waxa la keenay Tanzania lagu tababaray lagu hubeeyay kadibna gudaha la geliyay gudaha loo diray kadib shirkii ayaa la qabtay shirkii guud ee laga soo wada qayb galay wuxuu codsaday in wadamada Afrikaanka ah ay ku soo rogaan cunaqabatayn dhaqaale iyo diblomaasiyad ay ku soo rogaan South Africa wuxuu kale codsaday in wax badeeca ah oo South Africa lagu sameeyo Afrikaanku aysan gadanin wuxuu soo rogay in loo ogolaado dadka South Afrikaanka ah in ay Afrika ku dhaxmaraan xorriyad iyagoo aan haysanin baasaboor iyagoo aan haysanin warqad in loo ogolaado bal madaxdooda la siiyo baasabooro sidii ay ugu safri lahaayeen adduunka taas South Africa ma laakiin wadamada hore dhaqan galiyo waxa kamid ah Soomaaliya kamid ahayd Soomaaliya Eritrea markay dagaalamaysay waxay siiyeen 30,000 oo baasaboor ay Eritreanka ilaa maanta asaas farqi u haysta baasaboor Soomaaliya 30,000 oo baasaboor ay siiyeen Soomaaliya ururkii gobnadoonka Eritrea waxa la mid ah Soomaaliya siisay waxa la mid ah nimankii ka dagaalamay Zambia oo ay dawladdu hubaysay oo ay xayaba siisay dadkii u horeeyay marka barnaamijkan qaatay waxa kamid ah dawladda Soomaaliya gaar ahaan dawladda kacaanka ayaa kamid ahayd saadarteed dawladda waa iyagii Zambia iyo Angola iyo meelo badan Afrika ah ka ololeynaya Afrikaanka kala dagaalamayay gumaysiga heestii uu qaaday bacalwaan dad dhageystaan Ian Smith maxay Afrikaay maya waxa la dhahaa Yasin Magmaged Rhodesia Ian Smith wuxuu ahaa ninka xukumay Zimbabwe ninka xukumaha Ian Smith Ingiriis buu ahaa saadarteed waxay diidanayeen heesta waxay diidantaa in qofka Afrikaanka uu cadaan maamulo saadarteed Soomaaliya waxay dadkii gobonnimo doonka Zambia Zimbabwe Angola hormuudka u ahaa ayay Soomaaliya kamid ahayd maanta laakiin meeshan jooga aragtaan waxyaaba kale oo meesha geeyeen waxa kamid ahayd maamulka ama xukuumadda midabta koorka ee South Africa oo dhan bacad ku tahay tusaale ahaan waxay Algeria ama Jazair ya gumistay France maaha saraakiil South African oo cadaan ayaa loo diray Algeria si ay Faransiiska u baraan siyaabaha loo karbaasho dadka Afrikaanka ah لأن فرنسيسكو ما تقانان بين كثير ذكر الله والله ما نقانا ويبران طبعا وكا waxay geeyeen saraakiil kale waxay geeyeen Angola iyo Luanda geeyeen si ay Portugiiskii Angola lagu gumaysanayay ay u tusaan waddanka Afrikaanka ah si loo dhaqmo ee dawladnimada loo ogolisay anaga barna saadarteed wuxuu ku doodayaa Nelson Mandela war anaga kaliya dhib nagu ma hayaan ee nimankan Afrika oo dhan bay ku dhib ku hayaane aan iska dulqaadno wuu tagay shirkii ay dhisaba dhamaaday asagoo aad u faraxsan ay soo laabtay kulli dhulku ka galay Tanzania uu maray South Africa tagay waa la qabtay maxkamadda Rivonia ayaa la soo taagay
waxyaabo lagu eedeeyay waxa kamid ahaa in uu dadka ku dhiirigeliyo ku booriyay shaqo joojin markuu Afrika soo laabtay oo ciidankii hubeeyay oo dagaalo dhaceen oo waxan dhaceen oo South Africa isla gubatay oo hawlo badan la sameeyay oo la soo ogaaday xogta ninkani waxa laga hayo ayaa la soo qabtay marka la soo qabtay maxkamadii la keenay waa maxkamadda 27 sano lagu xiri doono markii la keenay waxyaabihii lagu eedeeyay waxa kamid ah kow inuu rabshadaha oo ka qayb qaato oo dadka ku booriyay laba waxa kamid ah inuu kaga baxay South Africa warqad la'aan passport ama warqad lagu safro soonaysan uu ka baxay iyo waxyaabo badan baa lagu soo eedeeyay markii maxkamaddu tagay eray wuxuu yiri coach ama irtibaas noqday oo ah maxkamadda waxaan ahay nin madow idinku waxa tiin cadaan hore u soo sheegay marka cadaalad aan inaga sugaa ma jirto waxa doontaan waa iska maamulan kartaan waxyaabo yiri wax kamid ahaa cod mali anigu maanta aan isku difaaco garsoorka meesha fadhiyo dhanna kulli cadowga iyo waxay rabaan inay argosadaan saadarteed kuma ma helayo maxkamad cadaalada wuxuu kaloo yiri markii la yiri markaad soo laabatay maxaad u imaan weeday baa la yiri oo aad xukuumadda u soo dhiibi weeday wuxuu ku jawaabay akhlaaqiyan iyo dadnimo ahaan aniga maxkamadan iyo qof kale ima khusaysaba aniga sababtoo ah qawaaniinta aad ku shaqeynaysa yaa qoray yaa ansixiyay qawaaniinta baarlamaanka hal qof oo aniga imatalo ma fadhiyo marka qaanuunka baarlamaan hal qof oo aniga imatala uu san fadhiin ka soo baxay aniga ma qabanaya kuma qabanayo laana fiir baarlamaanka waxa loo sameeyay deegaan ba ka soo jeeda deegaanka muhiim qabiilka shakhsiyan ma aha muhiim ah magaalada ku dhalatay magaalada waa inay hesho dad ka soo jeeda oo hadii la dhaho mesela ka soo qaad magaalada dad gaagaaban ba ku nool hadii loo dadka gaagaaban wax barasho meeli karaan maya dadka gaagaaban wax barasho waa inuu sinaadaan hadii yani waa in qof adiga ku fadhiyo oo maslaxadaada ka shaqeeyo baarlamaanka fadhiyo sadartu wuxuu baarlamaanka ani ima matalaba sababtoo hal qof oo ani imatala oo ani kalarkayga leh oo ani baahideeda leh oo fadhiyo ma jiro markii la weydiiyay maxaa xukuumadda dawladda isu soo dhiibay weydina wuxuu yiri dawladda ma ictiraafsanin inaad adi dawlad tahay anigu kuma ictiraafsanin anigu waxaan ku arkaa gumaysi dalkayga haddaan aaminsan inaad tahay dawlad ani aan leeyahay oo dalkayga xukunta dee waa isu ka dhiibi lahaa okay maxkamadda Rivonia maxkamaddaas waxyaabay lagu eedeeyay waxa kamid ahaa burburin hanti waxa lagu eedeeyay in uu rabay inuu xukunka uu bedelo waxa lagu eedeeyay inuu dadka ugu yeeray kacdoon waxa lagu eedeeyay in uu ciidamo ajnabi ah oo aan South African ahayn uu ku dhiirigelin inay South Africa soo galaan oo ay ka dagaalamaan dadkii maxkamadda la saaray waxa kamid ah Nelson Mandela Walter Sisulu Govan Mbeki hada abihi Raymond Mahlaba Ahmed Kathrada Dennis Kollenberg iyo rag badan ay ahaayeen dhamaantood waxa lagu xukumay xabsi daa'im markii lagu xukumay habeenkii la xukumay habeenkeedii ayaa diyaarad lagu qaaday waxa la geeyay Cape Town waxa laga qaaday doon waxa la geeyay Robben Island halkaas oo ay 27 sano ay ku xirnaayeen lixdan iyo waxa la geeyay dhowrkii 90 bilowgiina waa la soo daayay marka la soo daayay sababaha in la soo daayay keentay waxa kamid ahaa South Africa sanadba marka uu burburay adduunka laba awood warsi naati ahaayeen hal wax ba isku soo haro naata awoodisa galbeedkii ruushkii waa laga tagay adduunka wuu soo furfurmay waxaas wacyiga dadka soo yar ziyaaday sadarteed South Africa waxa la geliyay go'doon siyaasadeed baa la geliyay xitaa dawladihii taariikhiyan taageeri jiray Ingiriiska iyo Mareykanka ahaa ayaa yiri sida ma soconayso go'doon geliyay laba waxa cunaqabatayna badan baa la saaray diblomaasiyada oo dhaqaale ah oo hub ah oo waxyaabo badan ayaa la saaray waxaa batay dadka ka soo jeeda South Africa aan u dhalan South Africaanka adduunka meel walba madaxooda tagaan in lagu mudaharaado warankii ummadana wuxuu sii laba jibaaray dagaalkiisii intaas oo isu geysatay ayaa waxa sameysay iyo in adduunku u arkay Nelson Mandela nin aan argoosasho aysan ku jirin ayaa waxay soo dedejisay in 27 sano kadib la soo daayo Nelson Mandela dadka Afrikaanka aan xukunkii siyaasiga ahaa gacantooda lagu soo celiyay wali waxa ka maqan xukunkii dhaqaalaha iyo waxyaabo badan ay ka maqan aad baad maasantihiin waan rajeynayaa inaan wuxuun aan kala faa'iidnay assalaamu calaykum